السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإلهي مهدي هدي أنا أسكسور لابني مرة بعد يمر سدحد مرة أفراد إذن كون نبض أني ونبض وإلهي مهدي أصحابي واحد الله يمرقوه الرئيسة رمضان كريم إلهي رمضان تنا يلوغارسي بش برواقو هدي أنا تسكسو قدبو ما أنت بحان إذين وذا قصو ربأه ودعضي oo qisar rasmi oo qisad jacayl ba maanta idin wada anigu barnaamijyada qisooyinka jacaylka ayaan idin la wadaagi jiray hadda hor boy ogeydeen sida YouTube-ka ku jirta maanta waxaan idin wadaa qiso ah qiso ka dhacday wadanka Turkiga maanta Turkigan aadayna reer Turki waan salaamaya qisadan waxay ku dhacday gabar iyo wiil Turki ah ay ku dhacday asxaabay gabadha waxa la oran jiray Emine wiilkan waxa la oran jiray Oskan waxa ay la wadaagay dad family close ah oo wiilka ay gabadha qisada ay ku dhacday family isku dhow ay yihiin ba ila wadaagay qisadan asxaabay haddaan u soo gudagalay qisadani waa qiso xarunkeeda leh oo maxay ay to iyada dhanba ma aragtay qiso oo complicated ah weeyaan qisadan wiilka Oskan la yiraahdo wuxuu ahaa wiil maxay ay rajay ah oo aabi iyo hooyo ma uusan lahayn laakiin gabadha Emine waxay la noolayd familkeeda waxay ahaayeen famil sabool ah isaga xitaa Oskan qudhiisu wuxuu ahaa famil sabool ah ilmaha walaalihiis gelinka iskuulka jiray ma gelinka dambe ayuu maqaayadaha ugu soo xamaali jiray si ay u helaan qotliyoonka maalintaas ay cuni lahaayeen Oskan wuxuu ahaa wiil xoog furan shaqo badan dadaal badan oo ilmahaas la dhashay isaga oo walaalihiis ah asaga mas'uuliyadooda ka faalo qaaday maadaama ay rajo ahaayeen oo asaga ciraarka u weynaa asxaabay sheekadu markay halkaa marayso baa waxaa dhacday iyagoo maxay ahayd gabadhii Emine ahayd wiilka Oskan xiriirkooda jacayl uu socdo baa waxaa yimid cilad dad ay isku dhow yihiin family ay ma aragtay Oskan isku dhow yihiin baa waxay u soo heleen gabar markaas qaan gaartay oo maxay ahayd isla reer bursada familkooda ay bursada deganayeen laakiin reerkooda ay Yurub joogaan bay u soo qalqaaliyeen waxa la yiraahdo gabar baa lagu hayaa nin bay u baahan tahay maadaama aad in xoog furan tahay oo nin shaqo badan oo kartile gabadhaas baan ku haynaa adigana way ku anfacaysaa noloshaadana waxba ka bedelmaya walaalaha waxba u qabsan kartaa meel ma aragtay oo opportunity meel chance fiican leh baa lagu goynayaa qisadu iyo wiilka Oskan ah oo qisada ay ku dhacday waxay ka dhacday oo maxay ahayd gabadha loo doonay ay ku nooshaa wadanka anigu aan deganahay ee Holland bay qisadu ka dhacaysaa gabadhu waa reer Holland ninka Oskan soo dhici doonta waxay tiri maadaama aad ii soo aragteen anigu okay baan ahay dadkii ma aragtay familka ah ee ku qalqaalinay wiilkan Oskan waxaa la nin kartilo dadaal badan ku xoogsanaya baa lagu hayaa okay bay tiri gabadhii way tagtay Oskan halkaas ayaa lagu wareegay Emine warkama hayso laakiin asagu wuxuu door biday loof iyo lacag keeba la qaataa wiilada Soomaalidu lacagtu doonto marka Oskan sidii buu ma aragtay gabadhii ku soo guursaday oo maxay ahayd wadankii uga soo tagay gabadhii Emine ahaydna halka iyo bursa buu kaga soo dhaqaajiyay asagana wuxuu ku aqal galay wadankan anigu aan deganahay ee Holland buu ku guursaday naa kale asxaabay qisadu ma dhawa waa qiso dheer wiilka ila wadaagay qisadaas wallaahi qalbigiisa markuu iga sheekanay indhihiisa ilma ku soo istaagtay yani qisada jacayl xanuunka ay leedahay kaliya indhihiisa ilma ku soo istaagtay asxaabay qisada anagu ma soo koobi karo waa qiso dheer qaybaheeda dambe qayb koowaad iyo mid labaad iyo mid saddexaad xitaa ilaa 5 qaybood inay noqotaan u maleynayaa la socda channelkayga kala socda qaybta qisadaas ayada ah Oskan iyo Emine maanta waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii koowaad intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabi codsi dadku cusubtay halkan subscribe like share waa xagaaga haddii aad hore noogu joogtana gacmo fur baan ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh